qisadii xasan olol jaamac iyo aamino suldaan waa guurkii dhex maray jinka iyo insiga. qisadan oo naxdin iyo argagax iyo cabsi fara badan kulansatay waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdiraabeel ah. xasan olol jaamac waxa uu guursaday gabadh jin ah oo la yidhaahdo aamino suldaan. laakiin xasan olol jaamac waxay qisadan yaabka lihi ku dhacday oo ay la kulantay sannadkii 1948. sheekadaasi xasan olol jaamac marar hore oo dhowr ah ayuu ka sheekeeyey kadib markii ay waraysiyo la yeesheen qaar ka tirsan warbaahinta dalka ee kala duwan. wuxuuna xasan sheegay inay naagtaasi jinka ahi u dhashay 14 carruur ah. laakiin xasan olol jaamac waxa uu hadda ku sugan yahay oo uu joogaa magaalada Hargeysa. sidaasi daraaddeed ayuu xasan olol jaamac uga sheekeeyey qisadaasi ku dhacday iyo naagtaasi jinka ah ee uu guursaday, iyada oo ay xasan olol jaamac hadda da'diisu tahay 70 jir. xasan olol jaamac isaga oo ka sheekeynaya bilowgii sheekada iyo sidii uu u guursaday ee ay u kulmeen naagtan jinka ah, wuxuu sheekadiisa ku bilaabay: waxaan joogay magaalada Xiis, kadibna wiilal ayaa ka yimid magaalada Berbera. markaasi ayaan ku yidhi, maxaad ka shaqayn jirteen? waxayna ii sheegeen inay maraakiibta xoolaha qaada ka shaqayn jireen. markaas ayaan ku yidhi, xaggee Berbera loo maraa? waxayna igu yidhaahdeen, xeebta ayaa loo maraa amaba doon ayaa la raacaa. dabadeedna aniga oo abtigay la jooga Xiis ayaan is idhi Berbera u shaqo tag. kadibna abtigay ayaan u sheegay. kadibna waxa uu igu yidhi, doonyuhu ha yimaadeen, dooni ayaan ku saari doonaaye. waayo berigaasi gawaadhi ma jirin oo doonyo ama safaro lug ah ayaa Berbera lagu tegi jiray. markaas abtigay waxaan ku idhi, waxaan haystaa safaro aan raaco. abtigayna waa yahay ayuu igu yidhi. kadibna inta uu dukaan geeyey ayuu ii soo iibiyey 2 go', timir, sonkor iyo bariis aan sahay kasii dhigto. isla markaana waxa uu i siiyey 2 rubadood oo ah lacagtii Indian money la odhan jiray. laakiin safaro ma jirin oo safarba maan tegaynin. abtigay been ayaan u sheegay si aan uga baxsado. markaa habeenkii oo dhan ayaan waaga berigiisa aan ilaalinayay inta aan shantadaydii madaxa dhigtay. kadibna markii daakiraaddii salaada subax lagu dhuftay ayaan albaabka iska furay aniga oo abtigay ka dhuumanaya si aan uga baxsado. waanan dhaqaaqay, waxaanan qaaday waddada xeebta ee dhinaca Berbera u baxda. waagaa nin dhalinyaro ah oo 2 lugood ku orda oo iga dheereeya ma jirin. sidaasi darteed marna waan ordayay marna waan tallaabsanayay. dabadeedna goor ay maqribkii tahay ayaan arkay gabadh badda ku dabaalanaysa oo dharkeedii iyo alaabteedii ay bannaanka taallo. markaas ayaan is idhi, qoodh iyo xero gabadha quruxdaas leh ee cidladaasi joogta beerka kaga deg. dabaashana xariif ayaan ku ahay oo Xiis ayaan ku bartay. kadibna dharkii iyo sahaydii ayaan dhigtay oo baddii ayaan galay oo biyihii ayaan quusay. markaasaan 2deedii lugood dhexdooda ka soo baxay. dabadeedna inta aan mudh biyihii ka soo idhi ayaan iyadii shax ku siiyey. dabadeedna markii aan biyihii ku saydhay ayay igu tidhi, waardee badda dabaalo oo iga durug, maxaad hoosta iga soo galaysaa? dabadeedna markaasaan ku idhi, aynu wada dabaalano. waxay iigu jawaabtay, waxba ila dabaalan maysid ee badweyn baad joogtaaye, geeskaaga ka gal oo iga durug. kadibna intaan dib uga durkay oo sidii hoon barada aan isku soo rogay ayaan shaambad cidhibta kaga dhuftay si aan uga cadhaysiiyo oo ay iila dagaalanto. markaas ayaan
markaas ayaan isa soo hortaagay. Dabadeedna inta ay timihii dheeraa i qabatay ayay biyaha madaxa hoos iigu gelisay, iyadoon doonayn inay i disho, ileen lexe jeclo ayaa iga haysee. Markii aan hal mar cantoogay biyihii ayay isii daysay. Kadibna waxay igu tidhi, waar ma badda ayaan kugu baktiiyaa mise baddaad geestaada kaga dabaalan? Anigu ilayn dagaalkii aan doonayay ayaa cusboonaaday. Waan isku soo qaaday. Teeda kale waxaan moodayay gabadh insi ah, maanan moodayn gabadhani inay tahay gabadh jin ah, oo markii hore gabadh bini aadam ah ayaan u malaynayay. Weligay jinow sheekana kuguma maqal, shaahidna kuguma arag. Gabadhaasi mar kale ayay haddana badda ay quusisay, laakiin markii aan biyihii hal mar cantoogay ayay isii daysay. Dabadeedna waxaan is idhi, naagtan badda kaga adkaan mayside ee berriga ugu bax. Kadibna intaan baddii ka baxay ayaan guntigii giijistay oo aan weliba gaabsaday. Go'ii kale ee aan tuurta ku sitayna dhexda ayaan ku xidhay. Burkii aan sitayna labada gacmood ayaan ku qabsaday oo waxaan u diyaar garoobay dagaal. Dabadeedna markii ay baddii ka soo baxday ayay iyadoo aan kala jeclayn inaan dad ahay iyo inaan duunyo ahay, oo laafyoonaysa oo biyihii timaheeda sidaa uga kala daadinaysa oo shaxshax ka siinaysa, ayay iskay soo hortaagtay. Markaasi ayaan ku idhi, naa maxaad badda iigu baktiinaysay? Aniga oo isleh intaanay maryaha kaa gashan ee ay qaawan tahay beerka kaga deg. Laakiin waxay igu tidhi, oo ma imika ayaan kaaga raynayaa? Markii ay intaasi tidhi ayaan burkii u taagay, balse goor ay iga qaaday iyo goor ay ilagaday iyo goor ay burkii iga tuurtay toona, aniga oo aan ogeyn ayuun baan arkay iyada oo gacmaheedii midna cunaha igu qabatay, midna labadaydii gacmood ku haysa. Laakiin ima aysan ciijine waxay igu tidhi, waar ma iska tegaysaa mise kan cad iyo kan madow ayaan ku kala siibaa? Markii ay intaasi i gaadhay ayaan anigu isla hadlay oo aan is idhi, waar heedhe, dadku marka uu islaayo waa tii uu isku xiiqi jiraye, ee goorma ayay gabadhani ku lagaday, ushiina ay kaa tuurtay? Dabadeedna anigoo amakaagsan ayaan iyadii ku idhi, naabal isii daa, waan iska tegayaaye. Markaas ayay isii daysay. Kadibna waan dhaqaaqay, balse markii aan hal cabbaar ah sii socday ayaan dib u soo eegay. Dabadeedna waxaan arkay iyadoo labisatay, laakiin jeesigii aan sidaa u jeestay ee aan eegay waaba iyadii oo idhinac taagan. Kadibna waxaan is idhi, waar adiga oo dadka u dheerayn jiray kuma ay soo gaadheene, ma mid kale ayaa meesha kusii aasnayd oo hadda mudh ka soo tiri. Kadibna dhinacii ay iga maraysay mooyee dhinacii kale ayaan eegay, mise waa cidla, aniga oo yaaban. Markii aan 3 goor tallaabsaday ayay gacanteedii garabka iga saartay oo ay igu tidhi, inaadeer xaggeebaad u socotaa? Ilaa nin cadhaysan oo ay ka adkaatay ayaan ahaye. Gacanteedii ayaan iska tuuray. Kadibna inta ay i horqabataysay bay igu tidhi, waar dadku waana istilaa, waana heshiiyaaye, xaggeebaad ku socotaa? Markaasi ayaan aniga oo dudaya ku idhi, waxaan ku socdaa Berbera. Markaas ayay igu tidhi, caruur cayntaa ba'day oo Berbera inteebaad ku gaadhaysaa? Markaasaan ku idhi, caawa ama habeen dambe ayaan gaadhayaa. Markaas ayay igu tidhi, 10 cisho kuma gaadhaysid, ee waxaad yeeshaa reerkayaga oo halkan yaalla caawa u sii hoyo, oo halkaasi raashinkaaga iyo shaahaaga ku sii karso. Kadibna marka aad nasato meeshii aad ku socotay iska tag. Laakiin waxaa jirtay in aabbaheed hore ugu yidhi, aroortii jin iyo insi wixii aad hesho soo kaxayso. Waan oggolaaday. Sheekadii ay ii soo jeedisay oo waxaan ku idhi, waa yahay ee ina mari. Kadibna inta ay gacanta midig iga buuxsatay
ayay xaggii buurta ii jeedisay. buurtana haddii aan u lugayno waaga ayaa noogu baryaya oo ma gaadhi karno dusheeda sare. laakiin ila boodaya ila duushaya ma garanayo ee waxaan arkay mar qura annaga oo buurta dusheedii taagan. dabadeedna niman mowlac masaajid ku tukanayay oo jin ah ayaa igu soo yaacay, iyaga oo qaylinaya oo leh alle inse ayay wadataa gabadhii. kadibna intay xaggeeda dambe i marisay ayay iyagii afka shiinaha u eeg kula hadashay. cabbaar markii ay afkaasi kula hadashay ayay haddana af soomaali kula hadashay oo ay ku tidhi, aniga may garanaysaan inaan aamino suldaana ahay? waxay ku yidhaahdeen, haa waanu ku garanaynaa. markaasi ayay haddana ku tidhi, aabbahay ayaa igu yidhi jin iyo insi wixii aad hesho soo kaxayso. markaa wiilkaa yar baan soo helay oo ma taaban kartaan. kadibna waxay ku yidhaahdeen, buulka ha sii fadhiisto oo yaanuna soo dhex gelin annaga inta aanu aabbaha soo weydiinayno. la soco qisadan qaybteeda labaad oo aad iyo aad u xiiso badan. waxaana idinla socodsiinayay anigoo cabdi raabeel ah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.